wadooyinkan uu dhagax dhigay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa iska kaashanaya Banka Adduunka iyo dawladda Puntland waxayna yihiin 5 wado oo laami ah jidadkan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu dhagax dhigay ayaa waxay kala yihiin wadada Nexom Tawfiiq intida jidka Sodonka iyo wadajir Ahmed Saciid Muuse Ahmed Barre duqa degmada Garowe ayaa faahfaahin ka bixiyay 5tan wado ee la dhagax dhigay mudane madaxweyne waxa farxadno inaad maanta nagala soo qayb gashid dhagax dhiga mashaariicda isbarkan ah wadada Nexom oo ah wadada ay maalgelisay dawladda Puntland madaxweynuhu maaragtay amray wadadaas oo ah 1650 mitir iyo wadooyin dhan 6300 mitir oo uu maalgeliyay mashruuca bangiga adduunka ee SURB waxa ku jira wadada Sodonka oo 2 seed ah oo 2 kiiloomitir iyo 200 mitir lagu kordhinayo wadada Tawfiiq oo 1 kiiloomitir iyo 2 kiiloomitir iyo 200 iyaduna ah iyo wadada Inchi oo 600 mitir ah iyo wadada saddex digood ama extensionka wadada Wadajir oo ah 1300 mitir madaxweyne maanta waxaan rabnaa wadooyinka la dhagax dhigo insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in wadooyinka lagu gabagabeeyo sanadkan inta ka dhiman waxaana ka dambeyn doona package-kan waa package-kii koowaad package labaad ayaa jiri doona oo ka kooban buundada isbitaalka iyo wadada Gambool oo marta iskuulada iyo jaamacadaha iyo halka ka dhici doonta UN-kana kaga dhici doonta jaamacadda East Africa kaga dhici doonta laamiga weyn insha Allah taala waxaan rajaynaynaa kaasna in dhawaan aan xayeysiino oo cidii ku guuleysatay marka ay noo bilowdo hadii rabiidmo adduunku maalgeliyay dawladda Puntland ay iyadu maaragtay mas'uul ka tahay dawladda ay fulinayso iyo dhagax dhiga jidka Nexom oo ballanqaadkii madaxweynaha dawladda Puntland ku fulay dawladda Puntland iyo wasaaradda maaliyaddu ay bixiyeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo dhagax dhigay 5tan wado ee laamiga ah ayaa ka hadlay horumarinta magaalada caasimadda ee Garowe iyo dhismaha jidadkan isagoo sheegay dhagax dhiga wadooyinkan inay yihiin horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland runtii farxad ayay noo tahay in maanta laba mashruuc oo midna dawladda Puntland ay maalgelinayso midna dawladda Puntland oo la kaashanaysa deeq bixiyaasha World Bank uu maalgelinayo labadaba runtii waa dadaal dawladda Puntland ay qabatay mashaariicda kale ruuxadooda haddaan siday tahay looga shaqeyn oo waxyaabihii la iska rabay aan la buuxin sidaan ognahay magaalooyinkan ka faa'iideysan marka naftirkeeda waxaan uga mahad celinayaa dawladda mas'uuliyiinteedii labada heer degmo iyo heer dawlad dhexe sida wanaagsan ay uga shaqeeyaan waxaan rajaynayaa mashaariicdan sida looga soo shaqeeyay inay u fulaan oo xisaabtanka mashruuca fulidiisa in wado la dhiso way mararka qaarkood waa lagu guuleystaa laakiin in wado sidii loogu heshiiyay u fusha oo hadhow dhibaato la timaado oo burburta ayaa soo badbadatay marka waxaan rajaynayaa standardkii lagu heshiiyay in uu u fulo maintenance-ka iyo dayactirkuna uu joogto noqdo gacan ku hayntu waa muhiim wadooyin badan oo hadda sidaas oo kale loo dhisay oo waxa jira u baahan marlabaad in la dhiso marka gudoomiyaha gobolka iyo wasiirka howlaha guud gaar ahaan iyo maayarka iyo golihiisa deegaanka dhammaan waxaan ka rajaynayaa shaqadaas inay siday tahay in loo qaban doono hadii ilaahay marka runtii waa magaaladan oo kobcaysa oo runtii xarun u ah Puntland magaalada madaxda Puntland ah oo aan rajaynayno magaalooyinka ugu bilicda wanaagsan oo ugu ballaaran ee Soomaaliya inay ka mid noqon doonto waxay u baahan tahay in aad loogu fara adeego habraacyada mashaariicaha loo fulinayo si ay u noqdaan kuwa dhaxal gala oo muddo sii jira intii ka soo shaqeyso uga mahad celinayaa inta ku sii howlanaan doontana waxaan u rajaynayaa inuu Ilaahay u fududeeyo shaqadaas ay wadaan dabcan inta la xisaabtami doontana waxaan rabaa si joogto ah inay ula socoto mashruuca fulidiisa oo isha lagu hayo oo aysan noqon maalinta la bixiyay in lagu kala tago marka dhammaadkiisana waa rajaynaynaa anagoo nabad Ilaahay sukay keeno mahadsantii wadooyinkan maanta madaxweynaha Puntland uu ka dhex dhigay magaalada Garowe ee 5 wado ee kala ah
waddada nexom tawfiiq injida jidka soddonka iyo wadajir ayaa waxay qayb ka yihiin kaabayaasha dhaqaalaha taasi oo qayb ka noqonaysa horumarka magaalada garowe ee caasimadda puntland ay ku tallaabsanayso muddooyinkii lasoo dhaafay iyagoona qayb ka noqon doona waddooyinkii hore uga jiray magaalada garowe. Cawl Cali, warbaahinta Goobjoog.